Assalaamu calaykum saaxiibayaal daawadayaal ku soo dhowaada barnaamij kaloo cusub oo idiin soo tabiyo kanaalka Aqoon TV. Magacaygu waa Cabdifataax Abduqaadir. Tani waa magaalada ugu magac dheer dunida. Marka aan leeyahay ugu magac dheer, waxaan ula jeedaa inta xaraf oo ay ka kooban tahay magaceeda. Bal aynu dhageysano sida loogu dhawaaqo magaca magaaladan. Magacan oo ka kooban 58 xaraf. aan kuugu celiyo waxay ka kooban tahay 58 xaraf, taasoo ka dhigan in magaaladan ay tahay magaalada ugu magac dheer uguna magac dhib badan dunida. Magaca magaaladan ayaa asagu ka kooban isu geynta magaalooyinka aad halkan ka aragtaan magacyadooda. Haddaba magaaladan oo iyadu ku taalla cirifka waqooyi galbeed ee gobolka Wales ee boqortooyada Britain ayaa waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 3,100 qof. Dadkaas oo ah dad u dhashay gobolka Wales, boqolkiiba 70 ku hadla luqadaas. Magaaladan ayaa magaca loo bixiyay sanadku markuu ahaa 1860kii, taasoo looga gol lahaa in lagu soo jiito dadka dalxiisayaasha ah, taasoo hirgashay iyadoo sanad kasta oo ay soo booqdaan magaaladaas dad lagu qiyaaso 200,000 oo dalxiisayaal, kuwaasoo ka kala yimaado daafaha dunida iyagoo doonaya in ay mar un soo arkaan magaalada ugu magac dheer dunida. Haddaba mar kale ila dhageysta sida loogu dhawaaqo magaca magaaladan. Waa arrin la yaab leh. Daawade, adi weli miyaad isku dayday inaad ku dhawaaqdo magaca magaaladan? Fadlan noogu soo gudbi fikradahaaga qaybta comments-ka. Hana ilaawin in aad share garayso oo aad furato beelka si aad ula socoto barnaamijyadeena kuwa ugu dambeeyay.